shirkan waa cashirkii lixaad waxaa idiin soo diyaariyey Somtronics. cashirkan waxaan kaga hadlaynaa capacitor waxa loo yaqaano af soomaalina la yiraahdo madxiye. waxaan dhihi karnaa waa danab keydiya, wuxuu keydiyaa enerjiga ayadoo sidii oo charge oo kale ayuu keydiyaa. waa very important waaye capacitorka waxaa loo isticmaalaa electronic circuitska, waa loo isticmaalaa, waxaa loo isticmaalaa electricityga also waa loo isticmaalaa, marka fahamkiisa waa important waaye. markaa su-aasha waxay tahay capacitorka ama waxa aan leenaano madxiyaha muxuu yahay. capacitorka wuxuu keydiyaa tamarta korontada, tamarta oo ku dhisan danab ama charge, wuxuuna ku keydiyaa safeexdo ama plates waxaan dhihi karno korkooda. marka capacitorka sidiisaba wuxuu ka samaysan yahay laba saxan ayuu ka samaysan yahay oo iska soo horjeedo, dhexdoodana sometimes waxyaalo ayaa la geliyaa. capacitorka dhinac waxaa lagaga xiraa oo plateka waxaa looga xiraa plus, dhinaca kalena waxaa looga xiraa minus. markii voltage lagu daaro oo looga xiro minus iyo plus looga xiro capacitorka korkiisa labada plate korkooda waxaa ka dhalanayso danab, danabkaas oo uu ku keydinayo korkiisa oo ku keydinayo. marka capacitorka wuxuu leeyahay laba safeexadood plates oo ka samaysan birta macdanta ah, dhexdoodana waxaa ku jiro sometimes waxaa lagu shubaa walxo ay ka samaysan yihiin dhalo, sometimes dhalaa la geliyaa, sometimes waxaa la geliyaa warqad saliid leh dhexdooda ayaa la geliyaa, dhexdiisa la geliyaa, sometimesna caagad ayaa dhexdeeda la geliyaa. sababtana waxay tahay waxaa la diidayaa chargeka ama danabka ka dhalanayo plateyada, platekan ama platekan ka dhalanayo inaysan korontadu u gudbin ayaa loogu talagalay. marka wuxuu leeyahay laba plate, labada platena midna waa plus midna waa minus, dhexdoodana waa distance ayaa u dhexayso. waa inay jirtaa awood aan ku cabiri karno capacitorka sida uu u keydiyo danabka u keydiyo. marka waxaa jirto waxa la yiraahdo capacitance. capacitance is a measure of the ability to store an electric charge. sida la socotaana electric chargeka wuxuu ku keydiyaa labada saxan, labada plate korkooda ayay ku keydiyaa. capacitance waa waxa lagu cabiro kartida uu ku keydiyo danabka. marka capacitance oo c ka taagan waxaa lagu cabiraa ama cabirkeeda lagu qiyaasaa waxa la yiraahdo farad. faradna waxaa loogu magac daray ninka la yiraahdo Michael Faraday oo u dhashay wadanka Britishka u dhashay, oona ahaa ninkii shaqo weyn ka qabtay electromagnetismka waxa loo yaqaano ayuu shaqo xoog leh ka qabta. marka capacitance waxa ay lagu formulaha lagu helo waxay tahay q oo loo qeybiyo v. q na sidaa la socotaan waa chargeska on the plates, chargeka kor saaran suxuunta korkooda. v na waxay tahay voltagekii lagu xiray capacitorka lagu xiray oo minuska iyo pluska lagu xiray. marka waxaa lagu helaa q oo loo qeybiyo v. saddex waxaa jirto aad arki doontaan oo magacyo oo loo isticmaalo capacitorka qiimihiisa. mid waxaa la yirahdaa microfarad, sometimes waxaa loo qoraa muf ama uf, waxayna ka taagan tahay 10 to the power of -6 faraday. nanofarad isagana wuxuu ka taagan yahay nf, waxaana loo qoraa 10 to the power of -9 farad. picofarad ayaa jiro, asna loo qoro pf, wuxuu ka taagan yahay 10 to the power of -12 farad. marka saddex nooc ayaa jirto capacitorska, saddex nooc ayaa jirto. mid waxaa la yirahdaa fixed, waa qiimihiisa waa uu go-an yahay oo isma bedelo oo korkiisa waxa ku qoran ayuu yahay. midka kale asna sidoo kale waa fixed, laakiin wuxuu kaga duwan yahay noocan, wuxuu leeyahay minus iyo plus ayuu leeyahay, waxaana loo yaqaanaa polarized. sometimes waxaa la yirahdaa electrolytic ayaa la yirahdaa. oo waa inaad ku xirtaa negativeka, waa inaad negative ku xirtaa oo bateriga, positivekana waa inaad ku xirtaa positiveka bateriga. marka haddaad kala wareejiso waa uu qarxanayaa ama waa uu halaabayaa. waxaa kaloo jirto waxa la yiraahdo variable capacitor. variable capacitorka qiimihiisa waa isbedelaa oo waxaa ka mid ah aaladaha loo isticmaalo raadiyaha markaa mawjadaha aad bedelayso waxaa la yiraahdo
variable capacitor ayaa la isticmaalaa calaamadiisana dhexda wuxuu ku leeyahay fallaar ayuu ku leeyahay marka fixed capacitorka loo ah electrolytic loo yaqaano waxa uu ka samaysan yahay aluminium ayuu ka samaysan yahay korkii gudihiisa mostly waxaa loo isticmaalaa direct current korontada aan isbedelin ayaa loo isticmaalaa sometimes waxaa loo isticmaalaa inuu ka saaro markii haddii circuitka uu ku jiro noise uu ku jiro loo yaqaano ripple AC ripple loo yaqaan ayaa loogu talagal sometimes in loo isticmaalo waxaa kaloo jiro wax la yiraahdo mica kaas oo ka samaysan mica waxa uu ka samaysan yahay mica sheets separated by sheet of metal xaanshiyo la yiraahdo mica ayuu ka samaysan yahay gudihiisana waxaa ku jiro metal foil waxaa ku jiro bir laalaaban ayaa gudihiisa ku jiro kan waxaa mostly loo isticmaalaa capacitorkas in mawjadaha raadiyaha oo kale markaa rabta inaad saxdo ayaa loo isticmaalaa variable capacitor sida hore aga hadalnay waxaa loo isticmaalaa raadiyaha marka aad mawjadaha aad bedelayso marka sidee baa lagu akhriyaa capacitorka sidee lagu akhriyaa capacitorka korkiisa waxaa ku qoran laba shay ayaa ku qoran waa inuu kuu sheegaa voltageka uu capacitorkaas xamili karo iyo capacitanceska inta electric charge uu store garayn karo marka capacitanceska hadda capacitorkan waa 47 microfarad ayuu ku kaydin karaa gudihiisa labada boleed korkooda wuxuu keep garayn karaa 47 microfarad awood ah tusaalahan waxaan kusoo qaadanaynaa sida loo akhriyo capacitorka numberkiisa tusaalahan soo qaadanayna capacitorka waxa uu ka samaysan yahay ceramic capacitor ayuu ka samaysan yahay marka haddaan soo qaadano tusaale ahaan capacitorkan numberkaas ayaa ku qoran 483J maxay yihiin numberadaas numberka ugu hore waxaa loo yaqaanaa first digit second numberkan waxaa loo yaqaanaa second digit numberka saddexaad waxaa la yidhaahdaa multiplier oo waa kii numberkii lagu dhifanayay numberka afraad waxaa loo yaqaanaa tolerance wax kale maaha waxa maadaama uu ka samaysan yahay capacitorka material oo chemical ah waa isbedelayaa qiimihiisa waa isbedelaa marka waxa uu ku sheegaa inta uu isrogi karo marka haddaan numberadan aan soo qaadano 4 wuxuu yahay numberkii koowaad 8 waa digitkii laga qoraynaa 48 times waxaan ku dhufanaynaa multiplierkii oo ah 3 markaan soo qaadano wuxuu noqonayaa 10 to the power of 3 ama 1000 markaan ku dhufano 48 times 10 to the power of 3 ayuu noqonaya times ayaan leenahay 10 to the power of minus 2 alif numberkaas waa number caadi ah oo aan ku dhufano constant ah marka waxa uu noo sheegayaa numberkan helnay wuxuu noqday 48 times 10 to the power of 3 iyo waxaad isku daraysaa iyo 2 alif marka waa ay kala jarmayaan marka numberkii wuxuu noqday 48 times 10 to the power of 9 farads ama 48 nanofarads ama waxa uu qori kartaa oo kale 0.48 microfarad dadka inta badan injineerada waxay isticmaalaan 48 nanofarad numberka u dambeeyay J wuxuu ka taagan yahay tolerance marka in this case waa J markaan fiirino waxa uu noo sheegayaa plus or minus 5% marka qiimahan uu leeyahay oo ah 48 nanofarad waxaa laga yaabaa inuu isbedelo ama kor aado ama hoos aado 5% inuu aado tusaale kale ayaan soo qaadanaynaa oo aan raadin doono waxa loo yaqaan capacitance awoodda uu capacitorka ku kaydiyo danabka uu ku kaydiyo marka waxaana la yiri if a 24.5 times 10 to the power of 16 electrons are deposited on the negative plate of the capacitor by an applied voltage of 40 volts find the capacitance of the capacitor waxaana la yiri haddii 24.5 times 10 to the power of 16 oo electrons ah ay ku samaysmeen negativeka saxanka oo capacitorka hadday ku samaysmeen maadaama uu laba saxan leeyahay saxanka negativeka ayaa waxaa ku samaysmay 24.5 oo electrons times 10 to the power of 16 oo electrons ayaa ku samaysmay markaan isticmaalnay voltage 40 volts si aan chargekaas u create garayno marka su-aasha waxay tahay maxay tahay capacitorkaas kartidiisa
uu ku keyd garayn karo awooddaas. marka ugu horeysa waxaan bedelaynaa maadaama electronsna la siiyey waa inu bedelaynaa coulombs ayaan u bedelaynaa. marka 1 coulomb wuxuu la mid yahay 6.24 times 10 to the power of 18. marka waa u qaybinaynaa. markaan u qaybino waxa noo soo harayo waxaan u qaybinaynaa 6.24 ayaan u qaybin times 10 to the power of 18. labada electron waa isu go-ayaan. labadan kalena kor waxaa imaanaya 39.25 times 10 to the power of negative 3 coulombs ayaan helnay, ama 39.3 millicoulombs. maadaama ay negative 3 tahay waxaan isticmaalaynaa milli. marka capacitanceska markaan raadinayno waxaa lagu helaa sida hore usoo sheegnay chargeka oo coulombs ah oo loo qaybayo voltage. voltagena la siiyey waa 40 volts. q-na waa taan helnay. markaan isu qaybino q oo ah 39.3 times 10 to the power of negative 3 coulombs aan u qaybino 40 waxaa noo soo harayo 983 microfarad ayaa noo soo harayo, ama 983 times 10 to the power of negative. marka capacitanceska awoodda uu kaydkaas uu ku helayo ama ku keep garaynayo store garaynayo danabka sida energy oo kale u keep garaynayo waxay la mid tahay 983 microfarad. tusaalahan waxaana la warsaday if 60 volts are applied across a 470 microfarad capacitor, find the charge on the plate. waxaana la warsaday haddii 60 volt oo capacitorkaas lagu xiro, capacitanceska ama awoodda uu ku store garaynayo ama ku kaydinayo chargekanu ay tahay 470 microfarad. su-aashana la warsaday waxay tahay chargeka plateska korkooda korayo muxuu yahay. marka sidaa la socotaan q chargeka waxaa lagu helaa capacitanceska oo lagu dhuftay voltageka. capacitanceska waana la siiyey waxaa waaye 470 times 10 to the power of negative 6 farad. voltagekana waana la siiyey 60. marka waxaan helnay 28.2 times 10 to the power of negative 3 coulombs ayaan helnay, ama micro coulombs. marka daa waxaan u bedelaynaa electrons ayaan u bedelaynaa coulombs to electrons. sidaan ugu bedeli lahayn waxay tahay annagoo isku dhufano coulombkii aan helnay waxaan ku dhufanaynaa electronskii. markaan isku dhufano labadii waxaa noo soo haraya 1.7472 times 10 to the power of 17 electrons. marka capacitorka plateska korkiisa waxaa korayo intaaso electrons ayaa korayo 1.7 times 10 to the power of 17 electrons ayaa ka dhalanayso capacitorka labada plate. hadda waxaan sameynaynaa capacitorka ayaan charge garaynaynaa. lugta gaaban waa negative sidaa ujeedaan, lugta dheerna waa positive. marka waxaan ku charge garaynaynaa 2 volts. ka digtoonow ha ku xirin negativeka capacitorka, negativeka ha ku xirin positiveka, waxaa laga yaabaa inuu qarxo. marka waxaan sameynaynaa waxaan ku xiraynaa positiveka. marka hadda capacitorka waxaan sameynaynaa waa charge garaynaynaa. markaan charge garayno 2 volts ayuu noqonayaa tamartiisa, waxay noqonaysaa 2 volts ayuu tegayaa. marka hadda waa ka saaraynaa. waxaan sameynaynaa haddana waxaan cabiraynaa tamarta uu kaydiyey ayaan cabiraynaa. waxaan soo qaadanaynaa voltometerkii, tirka positivekiisa iyo negative, positiveka iyo negativeka waxaan ku rakibaynaa capacitorka negativekiisa, negativekaan ku rakibaynaa. positivekan waxaan ku rakibaynaa positive. waa inuu akhriyaa 2 volt, waa inuu akhriyaa. sidaa ujeedaan 2 volt ayuu kayd gareeyey. marka capacitorkii 2 volt ayuu kayd gareeyey markaan charge gareynay. waa ka furaynaa. waxaan ku xiraynaa haddana LED ayaan ku xiraynaa. capacitorka wuxuu kaydiyey 2 volt ayuu kaydiyey sida hore usoo sheegay. marka waxaan sameynaynaa capacitorka waxaan ku xiraynaa LED si aan u aragno tamartii uu kaydiyey si aan u aragno. marka waxaan sameynaynaa
positiveka capacitorka waxaan ku xireynaa positiveka LED-ga oo lugta dheer. Negativeka capacitorka oo lugta gaabanna waxaan ku xireynaa lugta gaaban oo LED-ga aan ku xireynaa. markaan labada volt aan ku xirno LED-ga waa uu daarmayaa. sida ujeedaan LED-gii waa uu daarmay, wuxuuna ku shaqeeyey tamartii oo keediyey capacitorka ama madxiyaha. kan waa ceramic capacitors waaye. kuwaana waxa waaye electrolytic capacitors waaye. tusaalahan raadiyaha am-ka waxaa ku jiro ceramic capacitors ah kona idin tusayo. kuwaas waa ceramic capacitor, kuwaasna waa electrolytic capacitors waaye. sida ujeedaan raadiyaha ayay ku jiraan. geedka waxa waaye variable capacitor waaye. waxaa loo isticmaalaa inuu bedelo mawjadaha raadiyaha. markaan raadiyaha daarno oo aan wuxuu ku xiran yahay naabkan. At the end of the Cowboys game, that game has gone final. Dallas, congratulations to you. The Cowboys are your NFC East champions. waxaa la variable capacitor aa lahaa. capacitorka ayaan haddana cabireynaa. waxaan geenaynaa aaladda meesha capacitorka lagu cabiro oo ah calaamadiisa. sida ujeedaan calaamadda capacitorka. markaan cabirnay wuxuu akhriyey 0.962 millifarad. markaan u bedelno microfarad wuxuu la mid yahay 962 microfarad. marka capacitorka waa qiimaha aad ayuu ugu dhow yahay. marka waa capacitorka waa uu fiican yahay.